رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، رمضانه هل هلاله يا حلاوة النور يا جماله، والسعادة لاح أهلا أهلا رمضان والكن أفراح أهلا. muslimiinta hilibkay cunaan balse maxay xayawaanaadka u gowracaan naxariis la'aan. markaad wax gowracayso xayawaanka ayaad cadibayso cadabaysaa, si tartiib ayaad u dilaysaa. waxaad tihiin dad aan naxariis lahayn. maalin baa waxaa dooday nin muslima iyo nin siiq ah. hindiya waxaa ka jira dadka siiqa ama singasingaha. ninkii siiqa ahaa wuxuu yidhi waxaad tihiin muslimiin, naxariis ma lihidiin, dhimrin ma lihidiin, xayawaanaadkaad cadabaysaan, hal marad koronto ku dili kartaan, maxaad u cadabaysaan? marka muslimku wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhi adinkiinan siiqa ah fulayo ayaa xayawaanaadka gadaal ayaad ka soo weeraraysaan, balse anagu geesiyaal nahay, horay ayaan ka weeraraynaa, waana gowracaynaa. midaasi waa xigmadiisa, ma ahan sababta aan wax u gowracno. taasi waa xigmadiisa, wax kale uu ku doodo waaye. marka wuxuu ugu jawaabay inaan geesiyaal nahay oo aan horay ka gowracayno oo aan gadaal ka weeraraynin xoolaha. hadda sababta dhabta ah ee caqliyeysan, cilmigana ku dhisan aan wax u gowracno waa waxaan ugu gowracinaa wadada islaamiga ah. wadada islaamiga ah ee wax gowracitaanku waxa waajiba in mididu tahay mid aad u af badan, waxaana waajiba in la dedejiyo si looga qafiifiyo xanuunka xayawaanka. midda labaad, waxaan jaraynaa neef mareenka iyo xididada ku hareeraysan, ma jarayno halbowlayaasha waaweyn. maxaa yeelay haddii ay dhibaato ku imaato halbowlayaasha waaweyn, seedaha la xiriira qalbiga way go'ayaan, markaas waxa imaanaya wadno istaag. isla sababtaasi waajib maaha inaan goyno halbowlayaasha, neef mareenka ayaan jaraynaa iyo xididada yar ee tiiftaafyada ah. waxaana ka tegaynaa isagoo wadnuhu boodboodayo. maxaa yeelay haddii uu wadnuhu boodboodayo, dhiigga ugu badan xayawaanka jirkiisa waa uu ka baxayaa. maanta saynisku wuxuu noo sheegayaa in dhiigga ay ka buuxaan jaraasiim iyo cudurro iyo bakteeriya iyo sun aad u fara badan. sidaa darteed waxaan u ogolaanaynaa dhiiggu inuu jirka xayawaankaasi ka baxo. maxaan u samaynaynaa arrintaas? xayawaankan dahirinaynaa, jaraasiimta iyo bakteeriyada iyo sunta ayaan jirkiisa ka saaraynaa, marka waa nadiif. intaa waxaa dheer, xayawaanka lagu gowraco wadada islaamiga ah wuxuu ooli karaa isagoo fresh ah muddo dheer marka la barbar dhigo xayawaanka korontada lagu dilo. maxaa yeelay nisbada dhiigga ee xayawaanka ku jira way yaraanaysaa, marka fresh ayuu ahaanayaa muddo dheer. intaa waxaa dheer, dadka qaar faham qaldan ay ka fahansan yihiin dariiqada islaamiga wax lagu gowraco. waxay u malaynayaan in xayawaanku dhimanayo isagoo xanuunsanaya. maanta saynisku wuxuu noo sheegayaa markaan wax gowracayno oo aan dhuuntan jarayno, waa neef mareenka iyo xididada ka agdhow, isla seedka iyo xididka la xiriira maskaxda isaguna wuu go'ayaa, waana xididka mas'uulka ka ah xayawaanku inuu xanuun dareemo. sidaa darteed xayawaanku ma dhimanayo isagoo xanuunsanaya, ee wuxuu ku dhimanayaa waddo nabadaysan. taa waxaa ka soo horjeeda kuwa korontada lagu dilo. xayawaanku badanaaba wuxuu dhintaa saacado kadib. haddaba wadada islaamiga wax lagu gowraco waa midda ugu nabadaysan. xayawaankuna wuxuu dhimanayaa dhimasho nabadaysan oo aan xanuun lahayn. xayawaanku waa uu rafanayaa, balse ma ahan sababta xanuunka, ee sababtu waa xibnihiisa ayaa mar isqabsanaya marna kala fidaya. arrintaasina waa markuu dhiiggu ka baxayo xayawaanka jirkiisa. wuxuu u rafanayaa waa dhiigga ka baxaya, ee ma ahan sababta xanuunka. haddaba wadada islaamiga ee gowracitaanka waa midda ugu caafimaadka badan, uguna xuquuq ilaalinta badan dhanka dilitaanka.